بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين فتحي oo maanta idin wada cashar kale oo cusub qaraaba soo dhawaada meel kasta dunida ka joogtaan dacaladeeda aad baan idin wada salaamaya dhamaantiin. maanta waxaan idin wada cashar cusub ma sha Allah. cuntada iyadoo cunto tahay, cuntada iyadoo isku wada mid tahay ayaa haddana qofba si qaaba u sameystaa ummad waliba dhaqan gaar ay leedahay oo ay cuntadeeda u sameysato. marka maanta waxaan idin la wadaagayaa cunto aan ahayn cunto Soomaali laakiin anigu aan aad u jecelahay maadaama aan jecelahay dhadhankeeda inaan cuno kaaliska arag. waxaan doorbiday marka inaan idin la wadaago asxaabtaydan aadka u jecelahay ee aanu dar Ilaahay ku nahay saaxiibada YouTube channelkayga. waxaad igala socotaana waa YouTube channelkayga Fathi's Cooking Channel. ma sha Allah markasta waxaa igu soo biirta asxaab cusub aad ayaan idinku mahad celinayaa. haddaad fadlan ugu cusub tahayna subscribe noo saar. hadda xabad ukuna ayaynu jabsanay oo aynu qasanaynaa. ukunta waxaynu ku darsanaynaa roodhida qallalan shiidan. badanaa marar badan fiidiyoyadii hore aan soo sameeyay qaarkood way ku jirtaa roodhidaas anoo sheegaya roodhida noocaas ku daraya. dadka keegagay waxaa sameeya way yaqaanaan roodhidaas shiidan. inagu wadankeeni laguma isticmaali jirin soo way adag tahay in magac loo helo. marka wuxuun baa la sameyn karaa in la sharaxo wixii wuxuu yahay. hadda waxaan soo qadinaa wax yar oo biyo ah ayaynu ku daraynaa. biyaha waxaan ugu daraynaa waxa weeyaan in si aanay u adkaanin xoog ugu adkaanin. 2 malqaacadood bay ahaayeen qiyaastii roodhida shiidan. 2 malqaacadood oo cuntada lagu cunaa oo roodhida shiidan, xabad ukuna, 1 malqaacad oo biyo ah, nus kiilo ama kiilo barkii oo hilibka shiidan ama duqad ah, wax yar oo filfil ah oo malqaacada shaaha lagu cabo haafkeeda oo filfil ah, wax yar oo milix aan idin ku daray. milixda dabcan qiyaastaada un baad ku darsanaysaa qofba sibuu milixda u jecel yahay. cuntada noocanana milix inay milix ka soo dhanto aad bay u fiican tahay. hadii kaleeto dhadhankeeda xoogaa wuu isdhimaya. marka milix bay ku fiican tahay xoogaa oo soo dhadhamaysa. haddana saasay tahay qof walba wuxuu jecel yahay. waxaan kale sameynaynaa basasha halka taala xabada basasha ayaynu jarjaranaynaa. basashii markaynu soo jarjaranay aynu soo yaryaraysanay maqliga waxay noogu jirta wax yar oo saliid saytuun ah ama olive oil aynu ku shiilanayno basashii. fadlan fiidiyogan haddaad ka hesho suulka kor noogu taag, suulka hoos ha noogu taagin ee kor noogu taag fadlan. maxaa asxaabtaadana la sii sheer garee si adiguba haddaad ka faa'iidaysatay iyaguna ay uga faa'iidaystaan. basashii markaan soo shiilnay waxaan ku darnay alaabtii isugu keen habaysnayd ee madiimada ama baaquliga inoogu jirtay. dabcan maydaan arkaynin markaan ku darayay sababtoo ah fiidiyoogu inuu xoog u dheeraado ma rabo oo wax kasta idin tuso way iska fahmaysaan. basashii markaan shiilnay halkaasaan ku darsanay kadib waxaan sameynaynaa waan isku xashiinaa. marka sida sabaayada kimista loo xasho ayaynu xashaynaa. ma sha Allah si fiican baan rabnaa inay isu wada dhex galaan wixii markii hore inoogu diyaarsanaa madiimada, hilibkii, basashii aynu soo shiilanay. ma sha Allah alaabtii waxaan ku sidan ay u eg tahay. si fiican markaynu u xashno maqliga ayaynu dabka saaran doonaa insha Allah oo ama subag ama saliid waxaad haysataa maqliga dabka aad ku shubanaysaa oo aad markaad beegarkii samayso aad hadhow ku shiilanaysaa. marka dabcan waynu isla arki doonaa.
markaan soo form garaynayo formka u sameynayo. asxaabay aad ayaan uga xumahay kamarada waxaan moodayay inay ii shidan tahay laakiin ma ii shidnayn. 4 xabo markii aan sameeyay ka bacdi baan arkay hadda dhib ma laha way la arkaysaan saan u sameynayo sidaas baan ku horeba u soo sameeyay in waxaad goosanaysaa kuus yar kuuskaas adeedna sidii kubado kala ka dhigaysaa kadibna baabacdaad ku yara ballaadhinaysaa. maasha allah kaala iska arag weeye. khatar ka dheh saasaynu u shiilanaynaa maqliga hadda xabadii ugu dambeysayna wadnaa. dhagdhe kaala iska arag maasha allah. cabaar baynu waxaan ku shiilaynaa halka maqliga laakiin kuma bislaynayno maqliga waan isla arki doonaa. wax yar baynu meesha nadiifinaynaa. nadaafadu waa diinta ka badh iimaanka ka badh. maasha allah saas ay noogu yara shiilmaysaa cabaar 2-3 daqiiqo dhinaciiba ayaanu shiilaynaa siday midab yaro fiican u hesho. hadda 2 xabaynu rognay midabkooda qurux caadi ahaan intaa kama madoobeynaysid waynu midabkiisu intaas midabka yara quruxda badan u ahaado. markaad maqliga ku sameyso kadibna ovenka ayaynu gelin doonaa oo aynu ku bislaynaynaa haddii ilaaha awoodda li inoo idmo. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka ha ilaawin channelkan oo saar sida aad fiidiyoyada dambe aan soo gelin doono aad ula socotid oo wixii aad u baahan tahay oo aad uga faa'iidaysatid. haddii aad ka faa'iiday asxaabtaada la sii share garay fiidiyowgan haddaad ka heshay fadlan subscribe-ka kor suulka kor noogu taag sooray. wixii su'aala ama dhiirigelin ah ama aad marba ku fakaraysidna commentiga ayaad noogu reebi kartaa. waxaynu ku ridanaynaa weelkii aynu ku gelinaynay ovenka ayaynu hadda saaraynaa. beegarkii waxoogaa ku shiilmay halka laakiin ma ka bisla dhexdiisu ma bisla waa qaydhin hilibku. marka waxaynu sameynaynaa waxaynu ku bislaynaynaa ovenka 200 gram baan u geynayaa muddo ilaa 15 daqiiqo ah ayuu ku jirayaa haddii ilaahay ka dhigo. dhagdhe halkaasaynu ku hubsanay waa ku dabooleynaa. waa inoo iyo rubac saac ka bacdi insha allah baynu isku soo noqonaynaa hilibow. haddana waxa aynu diyaarsanaynaa sooskii aynu ku cuni lahayn hilibkan. asxaabaysan horeba idinku sheegay aad ayaanu jecelahay cuntadan cunto qalaalooda waa cuntadan ugu jecelahay. marka adigana waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontid basashii xabadii basashaynu soo jarjaranay iyo wax yar oo subaga oo inoogu jira digsiga ayaynu isku shiilanaynaa. saliida dadar haysatid waad ku darsanaysaa waad ku samaysanaysaa shiilanaysaa laakiin anigu hadda wax yar oo subaga baan ku shiilaya. subaga waxoogaa udgoon yar buu yaro kordhiyaa siiba cuntooyinka noocana marka lagu sameynayo. maasha allah si fiican bay noogu shiilmaysaa basashii. waxaynu sameynaynaa waa sooskii aynu cuntada ku cuni lahayn. akhyaarey la socda
maasha allah basashii si fiican bay u shiilantay. waxaynu ku daraynaa 2 malgacdood oo yaryar oo daqiiq ah ama bur daqiiq ama bur 2 malgacdood oo ah waynu ku yara walaaqaynaa maasha allah. koob caano ah ayaynu hadda ku shubaynaa, koob kalena waan kusoo shubi doonaa, laakiin hadda kanaan rabnaa inaan kusii yara karino si aanu daqiiqdu kaaga buurbuurmin ama aanu digsiga kaaga gubanin. waa inaad walaaqdid dabkana xoogaa u yaree. haddana koobkii kale ayaynu kusoo darsanay, xoogaa baan haddana sii karinaynaa. daqiiqdu waa inuu aad markaad sooska dhadhamiso waa inaad dareemaysid inuu bisil yahay. haddii daqiiq ay kuusoo dhadhanto macnaheedu waxa weeye sooskii aad sameynaysay ma bislaanin. marka inta daqiiqda dhadhankeedu ka baaba'aya afkaaga wax yaro kareemo macaan uu kaliya noqonayso, sooskaasi ma bisla intaa ka horeysa. waxaan rajeynaya inay fahmi doontaan sidaan wax u sharaxayo. waxaan ku darnay wax yar oo filfisha cad ah, filfisha cad wax yaro ah, maan badin. wax yaro milixa, milixda dabcan sooska marba waa loo dhadhamin karaa, isagu sidii hilibkii oo kale maaha. hilibka laftiisa xitaa waxaad samayn kartaa in yar baad ka jari kartaa, markaasaad maqliga ku shiili kartaa intaanaad waxoo dhanba wada samayn. markaasaad arki kartaa inuu dhanaan yahay iyo inaanu dhanaanayn. waxaan hadda ku darnay waa wax yar oo sooya soos ah si midabka aan uga bedelno cadaanka faraha badan. maasha allah waan ku walaaqnay. sooya sooski markaan ku darnay midab qurux badan ayaa soo baxay oo dahabi ah. maasha allah soosku waxaan ku uri kaaliska arag weeyaan. xawaashiyadeena soomaaliga waxaas laguma darayo, bas filfil iyo milix ayaa u xawaasha. asxaabay hilibkii wuu bislaaday, waan ka soo saaray. soosku inoo bisil yahay. waxaynu ku cunaynaa baradho iyadana aan kariyay oo bisil. marka ila arka hadda bileedhkeenu saaranaynaa ama saxanka. cuntadan aad ayaan u jecelahay, marar badan horena waan idiin sheegay. laga yaabay inay igu casuuntaan xitaa maadaama idiin sheegay inaan aad u jecelahay, laakiin waa cuntooyinka qalaaloodka cuntadan ugu jecelahay baan idhi. cunto oo dhan ma aha. maasha allah baradhadii iyo hilibkii ayaynu saaranay. waxaynu kaloo ku darsanaynaa sooskii isagana aynu soo diyaarsanay. maasha allah soosku waan dhadhamiyey, macaan weeye wallaahi. maasha allah aad buu u fiican yahay. salad iyo waxaa maan u samaynin sababtoo ah kamaan gaadhin. marka haddaad rabtid salad yar baad u samaysanaysaa, laakiin basal yar baan soo shiilay oo aan ku qurxinaynaa. basal aan maxay tole gool ama giraan oo kale aan usoo jarjaray ayaan soo shiilay. dhag dheh maasha allah asxaabay waa aragtaan dee cuntadan waxaan ku idhi macaan weeye. waan dhadhamin doonaa insha allah. aad ayay u macaan tahay maasha allah tabaaraka allah. caadi ahaan ma adka hilibku haba yaraatee. haddaad weydiista aad tiraahdo wuu adag yahay ma adka, aad buu u jilicsan yahay. laakiin mindida sidan u hayaa dabcan yaraa daciif ahayd. waan dhadhaminaynaa. maasha allah tabaaraka allah.